بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوما IT tutorials iyo casharadii Python-ka cashirkii 39aad cashirkan waxaan ku qaadanaynaa hadduu adidmo waxyaabo faahfaahin ah oo multiple inheritance raacsan iyo BBT-gii hore aad u ogeedeen multiple inheritance oo kusoo sharaxnay waa hal derived class iyo base classes badan tusaalooyin badan waa ka soo sameynay oo tusaalihii ugu dambeeyay waxa uu ahaa hadda xasuusatiin waa tusaalahan person iyo employee iyo manager waa saddex classes saddexdan class saa u jeedid person waa class gooni u taagan IDE-ga PyCharm wuxuuna tusinaa classkan in la isticmaalo hal mar classkan hal mar la isticmaalay micnaheedu waxa uu yahay classka manager ayaa labadooda inherit ku sameeyay oo dhaxlay class walba waxa uu leeyahay init method intaan qaabna waxaan dhahnay waa qaabka ugu wici kartid parent classeska data marka u gudbinaysid marka uu data inheritance ku sameynayo hore oo soo sharaxnay waxaan dhan objects aan create gareynay wax dhan nidaamkan MRO-ga wuxuu ku sheegaa method resolution order-ka ku ogaan kartaa class walba MRO-giisa iyo sida ay u kala horeeyaan marka datooyinka la isku gudbinayo intaas ayaan ka soo hadalnay cashirkan kale waxaan ku dareynaa marka is subclass method waa method ku sheegaysa tusaale ahaan oo kale classeska datada kala dhaxlay marka aragtid driver classka iyo parent classka inaad kala ogaatid kee driver class ah ama classkan ma waxa uu dhaxlay classkan data miyuu ka dhaxlay inaad ogaatid marka aragtid methodkan isticmaalaysa is subclass waxa leedahay the is subclass method horta marka ugu horeyso waxa leeyahay user to check waxa loo isticmaalaa in ay check gareyso relationship-ka u dhaxeeya specified classes ka aad adiga sheegaysid oo caymaysid oo iyada u gudbinaysid it returns true waxay soo celinaysaa true ay soo celinaysaa oo ah sax classkan relationship kala dhaxeeyo if the class hadii classka oo sub classka ah uu yahay classka second classka xiriir uu ka dhaxeeyo marka ama uu data ka dhaxlay hadii kalena uusan data ka dhaxlina false soo gudbinaysaa tusaale ahaan oo kale hadaan jeegareno programkan waxaan ognahay manager class wuxuu data ka dhaxlay person iyo employee saas daraadeed hadaan dhahno meeshan print hadaan ku qorno oo dhahno waxa inoo daawacdaa functionka is subclass hadaan dhahno automatically IDE uu soo qabanaysa u jeedid waxaan hormarinaysaa classka datada dhaxlay ka waay classka manager capital aan ka dhigaynaa maadaama class uu yahay comma aan hore u soo sheegnay waxaan sidoo kale dhahnay is subclass ma waxa uu yahay manager class tusaale ahaan oo kale person subclasskiisa miya oo miyuu data ka dhaxlay yes waa true ayaa soo baxaysa hadda daawacno maxaa soo baxaysa fiiri qaybtan hoos waxaa nooga soo baxday true ayaa ka soo baxday oo ah manager class waa subclasska person haddaan dhahno tusaale ahaan oo kale manager classka sidoo kale employee ayuu wax ka dhaxla soo maahan haddaa xasuusatid meeshan classka manager waxa uu data ka dhaxlay person iyo employee so employee haddii aad gelisid oo tiraahid is subclass manager ma waxa uu yahay subclasska employee hadda tiraahidna waxa uu ku soo saaraa true laakiin tusaale ka soo qaado kale hadda tiraahdo kale person ama employee ama person waa class gooni u taagan sa u jeedid class person waa gooni u taagan classkaas person employee ma wax ka dhaxla hadda tiraahdo ka soo qaado kale laba class oo kala madax banaan waay false ayuu ku soo celinaa waxa uu ku leeyahay classkaas relationship kala ma dhaxeeyo oo person iyo employee wax relationship ah oo classes ka dhaxeeya malaha mid walba gooni u taagan sa u jeedid classkan waa gooni classkan kalena waa gooni sa u jeedid ba okay waxaad sidoo kale jeegarayn kartaa relationship-ka classeska marka laga soo tago method kale ayaa jirta oo ah instance-ga inaad jeegaraysid the instance method object kasto classeskiisa inaad ogaatid the instance method is used waxaa loo isticmaalaa to check inay jeegarayso relationship-ka between the objects and classes ka dhaxeeya it returns true waxay soo celinaysaa true ayay ku soo celinaysaa haddii first parameter-ka aad gudbinaysid ee object-ga ah uu yahay instance of the second parameter ee class ah tusaale maxaa laga wadaa meesha aad isticmaashay is subclass waxay ku sheegaysay class data kala dhaxlay kan aan hormarinaysid mar walba wax dhaxlay kan kale ayaa wax laga dhaxlay true ayay ku soo celinaysaa haddii relationship classeska uu sax yahay false ay soo celinaysaa haddii classeskaas isa wax ka dhaxaynin marka aan ka soo tagno haddaan booskeeda ku bedelno fiiri method kale oo la dhaho is subclasska meesha maadaama ahayd waxaa leenahay is instance method kan kale ayaan ku bedelaynaa saa u jeedid is instance ayaa leenahay meesha marka waxaan gelinaynaa object tusaale ahaan oo kale
objectiga waxaa leenahay manager ogow manager waa object anaga sameeyno meeshan ku create gareynay waana m small ah classkiisana waxa uu yahay m capital ah so haddaan dhahno tusaale ahaan oo kale manager oo object ah ma waxa uu yahay objectiga classka manager oo managerkan anaga aan create gareynay waa sax classkan ayuu objectigiisa yahay true ayuu ku soo celinaysaa ujeedada qaybtan hoose true ayaa ka soo baxaysa laakiin haddaan dhahno tusaale ahaan oo kale fiir object aan create gareynay xataa objectiga waxaan dhahnay persona object is create gareynayna shardi ma ahan person ina dhahayd kaliya haddaan dhahno object 1 hadaa u bixiyo oo is equal to classka person aan soo qaato kabacdi person data ayuu iga rabay waxa uu gudbinaynaa magac waxa muxuu ahaa random ayaa iska gelinaynaa kadibna waxa leenahay da aan gudbinaynaa okay intaan marka aan dhahno haddaan dhahno ka soo qaad marka meeshan aan gelino object 1 waxa uu yahay objectiga classka person haddaan dhahno waa true waxa soo baxaysa true saa ujeedid true ayaa ku soo baxay sababtoo ah object 1 anaga create gareynay waana classka person objectkiisa aan dhahnay okay intaan haddii rabtid fiir ka soo qaado kale employee class ku tijaabi employee class iyo object 1 wax ka dhaxeeya ma lahan oo objectkan waxa iskala person hadaa tiraahdo ka war object 1 instance-ga oo employee mi hadaa tiraahdo false ayuu ku soo saaraa saa ujeedid qaybta hoose false ayaa ka soo baxaysa intaan marka waxa uu ku sheegaysaa instance-ga tusaale ahaan fiiri meesha marka haddaan dhahno kan aan iska bixino objectiga uma baahnin waxaan leenahay classka manager objectiga manager soo qaado waxaan leenahay objectiga manager wax xiriir ah ma ka dhaxeeya classka manager horaan usoo aragnay marka daabacid true ayaa qaybtan hoose ka soo bixaysa ujeedid qaybtan hoose true ayaa ka soo bixaysa manager waa objectiga manager classka laakiin ka waran haddaan dhahno manager ma waxa uu yahay objectiga person ama employee midkood daa soo qaato idana true ayaa soo baxaysa sababta sidee ku dhacday trueda waxay ku soo baxday waxa ay tahay objectigan manager waa create gareysay waxa iskale classka manager so hadda mid ogow class iyo object ina kala saartay darabtid anaga inta badan isku magac aan ka dhigaynaa laakiin mar walba classka capital aan ka bilaabeynaa objectiga small kana ka bilaabeynaa xarafka ugu horeeya mar walba saasaan ku kala saareynaa hadii marka ina ku wareertid laga yaabo laakiin hadda ogow manager classka manager objectiga classka person waxa uu yahay instance ayuu u yahay sababtu waxay tahay sababtu waxay tahay marka aad joogtid classka manager waxaad wax ka dhaxlaysaa person iyo employee xitaa employee hadaad gelisid meeshan oo tiraahdo employee manager object employee instance-giisa ma yahay ama objectgiisa ma yahay qaybtan hoose da fiirish true ku soo baxaysa oo waa sax adigoo marka objectiga isticmaalaya ayaa waxa isticmaali kartaa classeska daatada aad ka dhaxlaysid person iyo employee person wax walba ku jiro isticmaali karaa person wax walba ku jiro isticmaali karaa employee wax walba ku jiro isticmaali karaa maxaa isticmaala anagoo isticmaalayna kaliya objectigan manager saasoo instance uu yahay sababta waxay tahay classkan manager oo objectkiisa a create gareysay oo objectiga manager yahay classkan ayaa waxa uu wax ka dhaxlay person iyo employee saas daraadeed person iyo employee wax walba oo ku jirana objectiga classka manager ayaa ku isticmaali kartaa tusaale ahaan oo kale objectiga manager ta soo qaadatid oo aad aad fiiriya dot haday aan dhaho editor waxa uu tusaa ama editorkan ama ID-ga isticmaalayo wuxuu tusaa manage oo aad ku create gareysay manager oo classki h fiiri iyo name waxa iskale classka person laakiin waa isticmaali karaa hadii aan rabo meeshan ku soo bandhigi karaa departmentiga classka manager iskale gradkan waxa iskale classka person employee waxa iskale employee ID-ga waa employee class iskale init methods kulli waa isticmaali kartaa hadii aad rabtid wax walba oo ku jirta classka person iyo classka employee waxa ku isticmaali kartaa objectigan classka manager objectigiisa ku isticmaali kartaa sababtan waxa ay tahay manager ayaa classka waxa wax ka dhaxlay person iyo employee marka methodkan ku sheegta objectiga classka classkiisa ku sheegta methodkan objectigan tusaalehan karo manager hada u gudbino true ayaa saddex mar inoo soo bixaysa oo ah hadii aan dhahno objectigani manager classka manager ma yahay yes classka employee objectigiisa ma yahay yes classka person objectigiisa ma yahay yes intaas baa ku soo baxay laakiin classka hadaa create gareysid oo soo wax ka dhaxlin oo aad meeshan ku sheegtid false ay ku soo saareysaa so idan waxa lagu ogaadaa relationship object iyo classes ka dhaxeeya ashirka intaas ayuu ku saabsanaa meeshaas aan ku sameeynaa billahi tawfiiq